ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka Sahanka Dunida. Waa tani farsamada lagu maareyn karo waqtiga iyo sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo waqtiga maalin kasta noloshaada ka mid ah. Haddii ay kugu dhaafto adigoon wax cusub noloshaada ku soo kordhin, waad khasaartay oo waxaad lumisay waxa ugu qaalisan adduunka. Nasiib daro, dadka badankood ma oga muhiimadda waqtiga. Mid ka mid ah dadkii xigmadda u saaxiibka ahaa ayaa laga hayaa qofkii maanta ah siduu shalay ahaa waa uu khasaaray. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, laba shay dadka badankoodu waa ay ilowsan yihiin: caafimaadka iyo firaaqada. Tanina waxay daliil u tahay ahmiyadda waqtiga iyo sida aan u fudeedsanayno. Mana ogaan karno qiimaha ilaa uuna dhaafo. Sideen u ilaalsan karnaa ama aan ugu faa'iideysan karnaa? Marka hore aan ogaano waxa waqtiga inaga lumiyo. Haddaba intaana gudagalin barnaamijkeena, fadlan subscribe saar kanaalka, gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. Haddii uu ku anfacana muuqaalkani, fadlan like garee. Lambar 1, internetka. Internetku waa seef laba af leh. Haddaad si fiican u isticmaasho, faa'iido weyn ayay ku siinaysaa. Haddaad si qaldan u isticmaashana, waxaad ka dhaxlaysaa shalayto laga yaabo inuu ku waxyeeleeyo. Internetku wuxuu leeyahay bara bulsho. Haddaba maxaa xal ah? Yareynta isticmaalkiisa iyo u isticmaalkiisa qaabka fiican. Lambarka 2, madadaalada. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waqti khasaarinta badan. Ma doonaye inaan kaa hor istaago ciyaarta iyo madadaalada, laakiin wax walba waxay leeyihiin xakameyn iyo xadidaad. Laakiin xadkooda hadday dhaafaan waxay isku beddelayaan waqti lumis. Lambar 3, TV. Telefishinka sida internetka iyo ciyaaraha waa in aadan si xad dhaaf ah u badsan daawashadooda. Haddaad badsato waxay noqonaysaa waqti lumis. Lambarka 4, hurdada. Oo aad badsato ayaa soo celisa shaqada jirka. Laakiin hurdada oo badato waxay leedahay cawaaqib xumo. Midda hore, waqti lumis. Tan labaadne, caajis. Sida caadiga ah, hurdadu 8 saacadood waa inaysan dhaafin. In ay ka yaraato mooye. Sidoo kale waa inaad seexataa habeenkii oo aad iska ilaalisaa inaad maalintii seexato. Allana wuxuu yiri, wajacalna al-layla libaasa wajacalna an-nahaara macaasha. Waxyeeladu waxaan u rogi karnaa faa'iido, ayadoo macnaheedu tahay inaad isku daydo inaad ka faa'iideysato qashinka adigoon u ogolaanaynin inay ayagu ku xakameeyaan. Tusaale ahaan, internetka sidaan soo sheegnay waa seef laba afla ah. Marka maxaana u adeegsan karin halkii aan waqtiga ku lumin lahayn goobo aan qiimo lahayn? Waxaan aqrin karnaa maqaalo waxtar leh oo aan daawan karnaa casharo waxbarasho. Sidaas daraaddeeda, koorsooyinka bilaashka ah waxay noqdeen maalmahan wax laga heli karo tiro badan. Waxaadna raadin kartaa waxaad rabto inaad ka faa'iideysato. Sidee ayaad waqtigaaga ugu faa'iideysan kartaa? Kadib markii aan ogaanay luminta waqtiga, hadda sidee looga faa'iideysan karaa waqtigaaga? Lambar 1, hadafkaaga dejiso. Bilowga maalinta. Bilowga maalinta deji hadafyadaada iyo inaad qeexdo oo aad isweydiiso su'aalaha soo socdo. Maxaad doonaysaa inaad ku guuleysato maalintan? Maxaa lagaaga baahan yahay inaad sameyso maalintan? Maxaad ku guuleysan kartaa maalintan? Ma jiraan wax kale? Waxaad naftaada u samayn kartaa su'aalo maalinle ah si aad u dejiso yoolalkaaga. Xasuuso, ha buunbuuninin howlaha. Hana ka dhigin howlo waaweyn oo aanad qaban karin hal maalin. Maxaa xiga? 2, diyaarso howlahaaga kadib markaad go'aamiso. 3, qor howlaha. Imikana
waa inaad qortaa shaqooyinkaas si aadan u ilaabin midkood. Waxaad isticmaali kartaa habka caadiga ah oo aad ku qori kartaa howlaha adigoo qoraya buug yar ama taleefanka. Lambar 4, eeg waxa aad ku guulaysatay. Kadib markay maalintaadu dhammaato, fiiri liiskaaga oo arag waxa aad qabatay. Markaad eegto liiskaaga, waxa ugu dambeeya ee maalinta aad qabanayso haddii ay ugu yaraan bar gaaro, waxaad tahay qof dadaal badan. Laakiin hadday intaas ka yaraato, ha quusan oo isku day dadaalkaaga inaad sii joogteyso. Waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyey. Haddii uu ku anfacay, la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. Haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka, hadda subscribe saar si aad muuqaaladayna dambe ula socoto.